waxaan u maleynayaa dhammaanteen inaan wada fahmnay maanta waxa laga hadlayo oo ah culayska lagu hayo bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan gaar ahaan dhalinyarada oo runtii bariyaha nidaamka waqtigiisu dhamaaday oo caadeystay inuu xirxiro xabsida ka buuxiyo lagu jirdilo lagu dhibaateeyo lagu ihaanaysto arintaasi arin la aqbali kara ma aha waa arin dastuurka ka soo horjeeda dhalinyarada Soomaaliyeed waa mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed marka ku xadgudubkoodu wuxuu u dhigmaa in lagu xadgudbo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waxaa nasiib darro ah nidaam waqtigiisu dhamaaday oo shalay marka uu banaanka joogay xurriyatul qawl iyo dawladnimo iyo dimuqraadiyad ku hadaaqay maanta inay waxaanu ka soo baxaan runtii arin la aqbali kara ma aha arin u qalanta ma aha ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay joogaanna arintan waxaan ugu yeeraynaa inay ka dhigayaan in walaalka la xiro oo walaasha la xiro oo qof Soomaaliya la xiro oo loo xiro dulmi iyo ra'yigaaga sheegtay iyo arin dastuuri ah oo xuquuqdiisa asagoo gudanaya inaa ka aamusto sax ma ah marka dhammaanteen waa inaan u istaagnaa arintaas arinta labaad oo aan rabo inaan sheego waxa waaye dhaqan cusub ma ah waa la soo arki jiro waxa iska leh nidaam kasta oo dictator ah dawladda Maxamed Siyaad Barre markay dhacaysa maxay u dhacdo ma taqaanin waxay u dhacdo guriyay baari jirtay huwan raadinna dhigi jireen hubkan ayaga bixiyo ugu hubka iyagu ay bixiyeen iyo intuu soo raadiyeen dadka dhici jireen gabdhaha farxumay jireen haddana waxa soo socda ama waxa bilowdo waa intaas magaalada Muqdisho aan ognaa maanta inaan lagu soo karinba dadka in la baaro maxay uga baahan yihiin waa wad ognahay albaab kasta waa la taagan yahay meesha laga soo galaayo control ayaala waa la controlaa dadka waxay ahaadaba jigboonteeda maanta gudaha yaala in la qaado qof gurigiisa in lagu taga ma ah marka waxa dhacaya waxa waaye shalay qofku waa la barakiciyay kii harana habeenkii ma hurdi karo gurigiisa loogu tagayo loogu socda wuxuu haystaa laga qaadanaya kii u dhaqdhaqaaqa xurriyadda dadka iyo xurriyadda naftiisana xabsiga la geeyay waa la jirdilay waa la qaawiyay waa la dhibaateeyay xogtu waa wada haysinaa u maleynaya dad badan oo soo maraya jooga kuwa badan ayagoo guriyahooda joogaan la handaday arintaas marka arin dawladnimada u haboon ma aha arin waqtigooda la jooga ma aha waa arin adduunka ay soo dhaafeen 800 sano 1000 sano ka hor ay soo dhaafeen Soomaaliduna wax ay ka dirireen taasay ahayd dadka marka wax kasta lagu cariiriyo oo nolosha lagu cariiriyo oo socodka lagu cariiriyo oo xorriyadooda loo diido waxay ku khasbayeen isdifaacaan maxay wax loo reeba ma jiraan dawladdan waxa loogu dul qaatay waxaan loogu dul qaadan dawlad ka horeysay sababtuna waxa intaas waxa la islahay warbal amnigu haduu noo hagaagayo aan dul qaadano waxa haday xadka dhaafaan waxay isu bedelayaan cagsi amniga hadda wuxuu isu bedelay wax la isku dhibaatay isu bedelay waa ogtiin dhalinyarada la xabadeeyay kuwa la xiray kuwa la handaday kuwan guriyahooda aadi karin oo dhuumanay ayaan aadi karin maxay sameeyeen ra'yigooda cabiraan ay ka qabaan nidaamka jiro oo waqtigiisu dhamaaday iyo xaaladda dalka ka jirta arintaas marka dadka fulinaya ee loo adeegsanayo ee dhaqaalaha ka sameynaya jagbointiyada magaalada Muqdisho yaala uma yaalin amniga dhaqaale u yaalin dhaqaale doon u yaalin ana wada ogtiin dhaqaale la iska qaada amni uma yaalin amni calaaqa lama laha amni waxa laga sugaa xuduud amni laga ma sugo guriyaha albaabkooda jidadka dhexdiisa laga ma sugo adduunka dhan amnigiisu waa standard waxa meeshan yaala dadka xukuma jagbointiyada bal wareysta dhaqaalaha ay ka sameeyaan madaxda dhaqaalaha loo geeyaa ayagoo dhaqaalaha ka sameeyaan yaa laga qaadaa dhaqaalahaas waxa laga qaadaa bulshada Soomaaliyeed laga qaadaa marka waxa jira dawladnimo ma aha waxa la isku dhibaayana waa sharcigi iyo rabitaanka jaceylka aan jecelnahay dawladnimada aan u dul qaadanayno ayaa la iskaga faa'iideystay arintaas marka waqtiga ay dhamaanaysa soo dhow waxaan rabaa inaan ku sii daro nidaamka waqtigiisu dhamaaday wuxuu isku dayaa dadka inuu dhibaateeyo abaabul ciidan oo ku jira waa wada ognahay mudaharaadka la soo dhaafay wixii uu sameeyay waa ognahay haddana abaabulka uu ku jira waa ognahay ayadoo sidaas tahay dad masaakiina oo wax magarato ah inta uu lacagtii oo ka dhaca ummadda siiyo inuu yiraahdo dadka aflagaadeeya ana leydila war ninka wax raba inuu wax dilo waa adiga ninka raba inuu wax dilo oo xukunka raba inuu xoog ku joogo oo sharciga diiday oo maamul goboleedyadii markii dhowr sano ku hayay sharci darro hadda yirina la arkaba ka tag meesha dadka xabadan ku qaadanaya
ما مقشين waxa ka dhacay ma waa ogtiin waxa ka dhacay baydhabo galmudug hadda waxa ka socda waa ogtiin hirshabeelle waxa ka socda waa ogtiin wax cad waa madaxweyne annaga waxaan kula tarin madaxweynuhu sharciga madaxweyne ku tahay dadka sharciga ku hag oo waxa tiraahdaa war waqtigiinu waa dhamaaday doorasho gala intaas uga adagta hadda maxay taagan tahay bax iyo bixi maayo maxaa ku xiga xabada ku xigta yaa wax dilay marka ciidankii la rabay inay amni sugaan amni ma sugaan waxa ka shaqeeyaan dadka lagu cabiriyo siyaasiyiinta lagu cabiriyo waxay ka shaqeeyaan shacabka in lagu cabiriyo waxa dadku ay cabasho ka joogaan shilin Soomaaliga lagu dhaqdhaqaaqay daaqad in laga saaray يعني meel kasto umadu ay ka dhaqaaqayso dhunta laga qabto waxaad is leedahay war dadkan ma waxa loo soo diray umada inuu adeegaan mise inay dhibaan amniga waa lagu dhibay nolosha waa lagu dhibay xorriyadaadii waa la qaaday shirkadihi iyo kambaniyada dadka ka shaqeysanay intooda badan waa faqriyeen dhalinyaradu waa kuwaas waa taagan yihiin kii raba inuu xorriyadiisa cabirana xabsiga la geeyay hay xaqeen loo wada marka dadka guriyada laga barakiciyay banaanka loo tuuray marka waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inay u diyaar garowdo marxalad xaasim ah marxaladda xaasimkaana waxa waaye nidaam kasta oo dictator oo kibra maalin oo jabaa wuxuuna jabaa marka shacabka gacmaha ku dhuujiyo jabaa waqtiga soo dhow hal loo diyaar garoobo aad iyo aad ma santiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.